cuqaal waxgarad siyaasiyiin xildhibaano iyo dhalinyaro tiro badan oo ka soo jeeda gobolka Saaxil ayaa maanta shir jaraa'id ku qabteen magaalada Sheekha gobolka Saaxil waxay kaga hadleen xadhiga loo geystay siyaasi Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo maalintii shalay ahayd ay ciidamada bilayska Soomaaliland xabsiga u taxaabeen waxayna odayaashan siyaasiyiintan iyo aqoon-yahankan sheegeen inay sida ugu dhaqsaha badan loo soo daayo siyaasigaasi iyagoo sheegay in siyaasi Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax uu yahay mas'uul qaran isla markaana ay xadhigiisa lagu sababayn karo sifooyin ku qotoma sharciga u yaala Soomaaliland sidoo kale waxay odayaashani baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha baarlamaanka iyo cid kasta oo ay khusayso arintani iyagoo ka codsaday inay sida ugu dhaqsaha badan loo soo daayo siyaasiga isla markaana xorriyadiisa dib loogu soo celiyo rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam halkan shirkigan jaraa'id waxaan u qabanay inaanu kaga hadalno xadhiga xaqdarada ah ee caburinta ah ee cagajugleynta ah ee Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax siyaasiga caanka ah lagula kacay waxaanu leenahay waxa lagu xidhay ee uu ka hadlay in afhayeenka boolisku uu ka hadlay waxa weeyaan wax xisbiyada iyo xukuumadda iyo cid waliba isku eedeyso in xisbiga kulmiye ilaa madaxweynaha wuxuu ku eedeeyay xisbiga wadani oo 40% doorashadii ka helay inuu xamar gacansaar leeyahay maanta Ramaax waxa lagu haystaa baashe ayaad ku tiri xamar baad gacansaar leedahay waxa weeyaan ujeedo kale waxaad u leedahay yaa raga daa dabada soo fadhiya ha soo baxaan waxaad u leedahay 24 saacadood gudahood hadii lagu soo deyn waayo wixii ka dhaca dawladda ka mas'uul haddii wax dambiya lagu hayada maxkamadda la horkeeda lagu cadeeyo inta ka bacdi waxaan ka hadlayaa oo aanu maanta halkan ka bayaaninaynaa xadhiga lagula kacay siyaasiga caanka Ramaax Cali Saleebaan laguna xidhay sida noo muuqatay inuu yahay mid xaq daraa oo sharciga aan waafaqsanayn qaabka loo xidhay sida aanu ka dhigaysanaynay warbaahinta wuxuu ahaa qodobka kaliya waana qodob curada oo aan ahayn qodob ugubahoo maanta soo baxay aan ahayn qodobkaas oo qodob curada in badan buu imika dalka dhexdiisa wareegaysanayay ama xisbi ha lagu yiraahdo ama cid kale ha lagu yiraahdo ama madaxyaad tiraahdo ama mijaha yiraahdaan in badan buu imika wareegaysanayay ma aha qodob kaliya ma aha qodob maanta soo baxay oo cusub qodobka lagu haystaa waa qodobka waxa weeye markii ay dawladdii faqash dhacday laba qodob baa laga helay in qofku xorriyadiisa goortu doono seexdo goortu doono soo kaco iyo inuu waxna diidi karo waxna dooni karo waxaan inta ahayn oo xorriyadii iyo maxay dawladdii hore xukuumaddii siyaad barnaamij ka dhaxalay ma jirto xorriyadii hadalka ahayd maadaama ay marayso maxaad kelmadda u tiri dee ama dadka hala wada simo kuwii ka horeeyay iyo kuwii kale ka horeeyay iyo kuwii wax walba ku hadlay in la soo wada xidho weey ay xisbiga Ucid waxaanu cambaareynaa xadhiga lagula kacay Ramaax Cali Saleebaan oo ah xoghaayihii Ucid taasi waxay meel ku darra ku tahay xisbiyada nidaamka u yaala taa waanu cambaareynaa madaxweynaha cambaar baan u jeedinaynaa waxyaabahaas waxa weeyaan waxyaabaha cagajugleynta ah lagu hayo xisbiyada sida Ucid iyo wadani oo kale wadani baa hore loo haystay imikana Ucid baa la raaciyo ay raacisay xukuumaddu waanu ka soo horjeednaa haddaanu nahay ehelkiisii iyo tolkii haddaanu nahay waanu ka soo horjeednaa odayaashii sheekh waa mudaharaadkii waanu joojinay nabadgelyo darre ma doonayno nabadgelyaanu rabnaa waxaanu cambaareynaa nabadgelyo darrada nagaga imanaysa xagga sare Hargeysa nagaga imanaysa ayaanu cambaareynaa haddaanu odayaasha reer Sheekh lahay waxa weeye hadal baa la isku xidhayaa dee ha la soo xaadiriyo wixii hore hadlayo dee ha la wada xidhxidho taa waanu ogolay waxaanu leenahay dawladda ulabo ay ugu tukumaysaa siyaasigeega waxaanu leenahay la sii day xorriyadiisa loo soo celiyo waxaanu leenahay xorriyadiisa loo soo celiyo siyaasiga dawladda waanu xisbiga iyo dawladda waanu dooranay
haddaanu doorno waxaanu ka haynaa ma jirto nabadgelyada dadku ku haysto waxaan ahayn ku hayno waxaanu xilali ma jirto sidaa darteed waxaanu mar labaad leenahay haddii la sii dayn waayo annagu dadka la mid ma nihin duudaanu fadhinaa duuda ayaanu fadhinaa gabagabadii odayaashan ayaa waxay sheegeen inay gebi ahaanba joojiyeen mudaharaad dumar iyo carruur ay ka bilaabeen magaalada sheekha gobolka saaxil isla markaana ay ugu mudaharaadayeen xadhigga maxamuud cali saleebaan ramaax waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka caalamiga Ariel magaalada sheekh